wax sahlan ma aha in dalkaada iyo deegaankaada aad dulmi ku dhex mutaysato waa dhif iyo naadir inaad baryo ka dhexda carruurtaada adigoon oga dhaxaynin sababo adayga ku khaasa balse cabsi aad u qabta naftaada in la dhibaateeyo deegaanka Soomaalida laga soo bilaabo sanadii 1954 xilligii lagu wareejiyay Itoobiya nidaamyadii kala duwanaa ee soo marahayay waxay ahaayeen kuwa tacaddi dhibaateyn caburin cagajugleyn bahdilaad xabsi iyo xaquuq darro ku hayay shacabka Soomaaliyeed hal doorka aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo dadka inta badan afkaartooda curiyana waxay ahaayeen kuwa dulmi iyo dhibaato mutaysanayay 27 سنة TPLF waddanka ay maamulaysa ugu daraatee ilaa ay hadda shacabka Soomaalidu ma aysan helin fursad ay ra'yigoodii aragtidooda ku cabiraan maanta barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa siraajo aadan oo in badan ka maqasheen baraha bulshada asagoo dhaliilahayo eedaymana u jeedinaya xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida dhowr jeer hore waxa uu ka soo hadlay barnaamijkiisa geesa badan dhinaca kalena waxaan ka qaadnay waraysiyo kala duwan si aan u ogaano xaaladda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida siraajo hadda waa ay kala maqan yihiin asaga iyo carruurtiisa maalmo gabad iyo dhuumashaana wuxuu ka baxay magaalada Jigjiga markii uu helay fursad uu ku tago meel nabdoon qaba waxaan wax ka weydiinay sababaha keenay siraajo in la xidho xilligii xukuumadda Cabdi Maxamuud Cumar muddadii uu xabsiga ku jiray waxyaabihii uu soo maray iyo waxa gundhiga u ah xarigiisa sidoo kale siraajo muddada uu joogay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa laga eriyay shaqadiisa waxa lagu dhibaateeyay gurigiisa dhabarka ayuu dhowr jeer ka jabay dhinaca kalena marar badan ayaynu baraha bulshada ku maqalnay waa la xidhay waa la soo daayay iyo sidoo kale isagoo dhowr jeer noo sheegay in uu leeyahay qadar maxkamadeed ugu dambeynsa siraajo maalin dhaweyta waxa uu shaaciyay inuu magaalada Jigjiga si dhuumashaala kaga baxay haddaba arrimahaasi shacabka Soomaalida su'aalo badan ayay iska weydiinayaan waxa goonida ku siraajo waxa ersanayo iyo sababta ka dambayso maxaa ka dhaxeeya asaga iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inkastoo anigu aan xogaal ka ahaa haddana waxaan jeclaaday inaan xaqiiqooyinkaasi u soo bandhigo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida siraajo waa dulmane ku dulman dalkiisa iyo deegaankiisa dhinaca kalena labada habeen isku xigto marna ka dhaxo marna xabsi u hoydo marna xabsi daraadeed oo ka baxo magaalada Jigjiga carruurtiisana aan la qaadanin farxadda ay la qaataan aabayaal fara badan oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida dhinaca kale siraajo waxa uu la kulmay cadaadis dhanka shaqada oo ugu dambeynna mid ka mid ah xaasaskiisa ayaa laga eriyay shaqadii ay ka haysay xafiisyada dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo loo aanaynayo inay siraajo wada joogaan dulmiga ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay haddaba si aan xaaladda siraajo wax uga weydiino waxaan wax ka weydiinay siraajo bal taariikhdiisii hore midda hadda uu ku sugan yahay maxaa lagu xidhahayo maxaa keenay inuu Jigjiga si dhuumashaan uga baxo maxaa u dhaxeeya asaga iyo madaxweyne Mustafa siraajo soo dhawow waan kaga mahadcelinaa waqtiga iyo fursadda siisay sidaan ula soconno dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay xabsi ay ka mid tahay jab shaqadii oo laga eriyay ilaa xataa xaasaskaadii waxa weeye shaqooyinka laga soo eriyay caqabado badan aad la kulantay adiga laftigaadu dhaliilo fara badan aad jeedinayso mar xabsiga aad ku jirtay maraad banaanka joogtay maraad hadlaysay iyo maraad qadara maxkamadeed lahayd shacabka Soomaalidana su'aalo badan ay arintaas iska weydiinayaan bal waxaan jecelnahay in aad noo sharaxdo xarigaada iyo sababaha ka dambeeyay iyo caqabadaha xilligan aad la kulmayso nooca ay yihiin xagee ku dambeysay maxkamadaadii bismillaahir rahmaanir rahiim wareen ku salaamaya aad iyo aad baad maasan tahay waxay raalibiga adaga ahaanaysaan haddii codkaygu xabaab u yara yeesho wuxuga hargab xun baa aad yahaya haddaan kaaga jawaabo su'aalahaaga oo saddex wejiyo aan u kala sameeyo waa su'aalo isa saaran waa lagu eriyanayaa shalay waa lagu eriyanayay waa lagu xidhay waa lagu soo daayay waad yar aamustay kiis baa kugu socda waa lagu soo weeraray hadda gurigaagii kuma sugnid oo reerkaagii waad ka qaxday meel aad ku sugan tahay inay amni tahay iyo in kale dee adigaa og waddanka gudihiisa haddaad joogto iyo haddaad meel kaleba joogto bal markaa bal xaaladaada guud ahaan tan hadda lagu jiro tii shalay la soo maray noo dulmar yaan u gartay su-aashaada guud ahaan haddaan ka horeeyo si waktigu aan uga faa'iidaysto maadaama tii shalay ay koobnaanayso inaan ta shalay ka horeeyo deetana kadib hadda waxaan ku suganahay iyo isbeddelku intuu yimid eed sheegtay dhibaatooyinka ay gaadhay inaan ku dambeeyo oon faahfaahiyo oon dadka la wadaago bacdama aanan kaba hadal weligay inaan wax yar iminka lafteeda kama bogan karo laakiin aan yara faahfaahiyo markaa shalay dee waad ogeyd oo deegaanka dhib baa ka jiray dhibaatada ka jirtay markaa waxaan u arkay in lagula dagaalami karo asalba dictatorka waxa lagula dagaalamo waa xaqiiqda oo la baahiyo marka ahmiyadda warbaahintu leedahay baan dareemay kadib markaa waxaan isku day jiray goor walba anigoo markaa xafiiska caafimaadka weliba aan mushahar qaadanin xabiib oo kolkaa madaxbiseedka ahaa uu igu qoray oon ku joogo warqad howlgelin ah yaa waxaan samayn jiray had iyo jeerba inaan arrimaha muhiimka ah ee bulshada taabanaya iyo dhibabkii dhici jiray in aan la wadaago dadyow markaa dibadda jooga si ay u isticmaalaan maadaama in la baahiyo una aan rabnay arrintaa markaan dareemay
kadib waxaan samaystay dad fara badan oo dadka gobolada ka yimaada riyaalkan helaba waxaan gelin jiray akhbaar inaan ku helo si aan dadka ula wadaago ilaa heer waxaan gaadhay markii dambe xasan maxamed layla xidhiidhiyo oon xasan maxamedkan aan u diri jiray waa la weydiin karaa isagana warbixinada isaad uu kaga warrami jiray xaaladda waddanka update-ka aniga u diri jiray meelo badan baan u diri jiray website la odhan jiray maxaan ku idhahdaa fallo.com baan u diri jiray waan la xidhay sanad baan ku xidhnaa halka booliska gobolka Jigjiga waa la soo daayay kadib markii dambe ilaa anaguba mataqaana aan sameeyno Faadmo Firimbi sidii baan jeel ku galay marka 4 sano halka ku liqay marka shalay anigu guud ahaan maanan cararin wadankana kama tagin qof aamusayna maanan ahayn oo dhibaatadii wadankiisa ka jirtay ka aamusay lagamana aamusi kareynin dadkii victimka u ahaa markii dibadda joogaana u fikirayay goor walba ka hadlayay baan ka mid ahaa kuwii gaabsadayna kuma jiro kuwii dantooda raacdayna kuma jiro kuwii cararayna kuma jiro waxaan ka mid ahay ugu horeyn oo iga sareyn kara waxa weeyaan ragga inta xabada qaadeen ay laabta kaga dhacday ama iyagoo dagaalamaya la qabto oo jeelugaadeen aan ku wadi jirnay halka qofka kaliya tan karaamo uga ogolahay waa nimanka oo laf la yiraahdo iyo ninkii wadanka xabad u qaaday ee xabad inta ku dhacday u dhaawacmay ama loo badilay kaasna uu iga sii darajo sareeya marka taas shalay waxaan jeclahay marka inaan inta kaga soo baxo guud ahaanteed ba shalay waxaan ahaa marka waa la wada garan karaa qof walba ay ku suntan tahay haddana kadib markii hadda isbedelkan aad sheegtay uu dhacay anigu waxaan jeclahay inaan ku koobtoon hadda taariikhdii kale iyo waxa ma sii galgali karo isbedelka waan soo dhaweynay waxaan rabnay inuu noqdo mid lagu nasto uu noqon waayay ka bacdi marka inaan ku garab sawirnaado waan diiday totally wax iska kay bixinayana ma aha taas marka waxay noqonaysaa shalayna xabadun baa jirtay oo dhibaato guud oo external oo inaga madax banaan baa jirtay maantana mid inagu gacan ku samaysa oo tii oo kala ah oo exactly madaxweynuhu uu doonayo inuu ku cadgoosto baa jirta oo isagu uu wado meel kale ka soconin taasoo inoo diiday inaan qeyrkayn raacno inaan Ethiopia wax la qaybsano inaan dhibaatadii ka soo kabanno inaan isku tashano inaan dad qadeed la noqono inaan istifaacno dhammaan waxaas oo dhan waxa inoo diiday danta kursiga madow ninkaas kursigiisa ilaashanaya wuxuu samaystay koox odayaal iyo dad kale iyo kursiga la ilaashada oo noocyo badan isugu jira damiirkaygu markaa wuxuu diiday arrimaha noocaasa waa la dhibaateeyay fikirkaygii baan u dhibaatoobay madaxweynaha waan u tagi jirnay waan la talin jirnay anigu xilliga xoolo midna kama doonaynin waxaan ku yidhi aniga waxba kaama rabo xafiiska caafimaadkan shaqaale hoosaad ka noqday markii dambe waxaan bilaabay mowduucan geesa badan oo kanaan u dhimanaya ah waa la ii yeeray jooji waan joojin waayay qoraaladii baan waday ilaa lagu yiraahdo agaasin ahaan maysid oo mushahar qaadan maysid annagana dhaliili maysid annaan ku yiri mushahar kuma nooli adigu ala kulli xaal shaqadii yareed waa la igu yimid waa la iga qaaday walaalkiiba ku qortay bas anigu markaa mowduucii aan u dhintay maan joojiyaa maya waa inaan wado waxay noqotay markaa in la soo weeraro 3 jeer ilaa gurigeyga inta la igu yimid markii dambe la idilo oo dhabarka la iga jabiyo oo anigoo dadka ka ilaalinaya aan ilaahdo meel baan ka booday aniga sida ku jabay dhakhtar baan tagay Turkigaan tagay waa soo noqday anigu dhaliishada baan iska bilaabay waa la soo weeraray haddana waa la xidhay waxa la xidhay 3 jeer baa la xidhay tira ka 10 jeer waa la soo weeraray gurigeyga shalay saan ugu cabsanayeen amni ugu haysanin baana maanta ugu haysanin tii ugu dambeysay hadda February 27deedii waxaan doonaynaa abaaraha inaan ka hadalno annagoo dad badana intii baa la igu soo weeraray waa la xidhay 3 bilood baan halka ku jiray hadda markaan soo baxnay marka iyo xaaladayda haddii aan kaaga warramo iyo hawshan dambe waxay ku timid anigu inta badan hadalka waxaan jeclahay inaan u dhigo qaabka uu yahay anigu markaan soo baxnay horta dee shuruud ma jirin dad baana soo damiintay dad badan baa hawsheeda ka qayb qaatay waxaan isaga baahnaa inaan xaafadaha iyaga iyo caruurtayda waqti iskala qaadano anigu shakhsiyan waxaan u baahnaa inaan caruurtaydina waqti iskala qaato oo weligeyba aan waqti siinin hooyaday oo arrimahan politicalka aan aad u fahmayninna oo dhaliilsanna bacdama dadku tol iyo qaraabi iyo uu wax wada yahay iyadu dhinacawn ay ka garan karto
hooyadeyna inaan mataqaanaa aan jilbaha qabsado aan ka ducaysto inaan iska gaabsado bal in muddo ah waqtigana aan iska sugo caruurtaydana aan iskala noolaado taasaan doonayey marka facebookaygii maanan furin xitaa muddaan waxoogaa iska yar joognay markii nala soo damiintay dee walaalkayba ay soo damiintay oo sidii iyadoo mataqaanaa aan bangiga lacag ka dhacnay dadka bangiga lacagaha ka dhaca ama deynta lagu leeyahay baa marka la damiinanayo la eegaa waxa lagu damiinanayo iyo lacagtii lagu lahayna isleeyihiin waxalla waxaan ku xidhnay inaguna jirin yaa markiina la soo daynaya annagu shuruud waxaan ka dhignay mar baa la damcay in la xukumo kabacdina in la sii daayo si aanaan ugu doodin maxaana lagu haystay annagu tii markaa waxaan nidhi haddii ay noqoto in la xukumo waa dulmi markaa kadinka markaa gaadhna waan hadlaynaa baan ku idhi in dulmina lagu xukumay kiiskaygiina waan ka sheekayni kabacdi markaa taasi waxay keentay annagoo nala xukumin in la soo daayo waan ka gaabsanay markaa kiiskayagii iyo arrimihiisiiba inaan ka sheekeeyo adigu sidii marka laygu soo damiintay hantida najib oo dhan baa laygu soo damiinto dowladda hoose laga xayiray waxay ahayd markaa kiiskii dadkan hawshayada ku jiray waxyaabo badan qaarkood ma fahmi karaanoo waxaan inay madaxweynaha toos uga socoto inay qaarkood liqilayihiin baa laga yaabaa marka maalintii ugu horreysay markii maxkamadana looga yeedhay way maqleen qaarkood markaa waxaan iyagu markaa waxay yidhahdeen kuwii cadaaladdan la hadlaynaayo an markaa waa yahay baan ku idhi laakiin waxaan garanayaa anigu cadaaladdu inayna waxba ka dhigi karaynin arrintayada oy madaxweyne ku xidhan tahay oo ilaa madaxweynuhu uu soo amro aan kiiskan la xidhaynin hawshii sidii baan anigu hal maalin maana u goynin qadaradii sidii baan u tegi jiray xaafadayda oo markaa aan Addis Ababa joogtay inaan xitaa caruurtayda gaadho waan kari waayey waxaan samayn jiray markaa qadaro walba sidii baan u tegi jirnay nidaamkan markaa anigu jeelogaadeen 4 sano iyo xilligii badnaa khibrad baan ka helay marka ay geesaha yeelanayaan waan aqaanaa adu calaa kulli xaal qadaradii markaan sidaa u tegi jirnay muddo oo aniguna markaa aan iska aamusnaa waxaa dhacay laptopkaygii oo layga haystay baan doontay waxaa igu jiray dukumenti aad qaali ah 2 buug oon qoray oo mid uu ka hadlayo xusuus dhowrka jeelogaadeen xusuus qorkaygii jeelogaadeen iyo wixii ka dhacay iyo sidii loo qabtay iyo nidaamkii aan kaga sheekaynayo sidoo kalena isbedelkan intuu yimid laga soo bilaabo bishii laga soo bilaabo 2019 ilaa 2020 wixii dhacayna uu ku jiray laptopkaygii markaa maadaama gamco badan galay waxaan dareensanaa buugga haddii la arko in ayna soo dhaweyneynin qaybta dambe qaybta hore way soo dhaweyni anu markaa booliskii codsi baan qoray waan kugu soo lifaaqi karaa warbixinta waxaan ku yidhi laptopkii halaysiiyo 2 qofna hala ii eego inay ku jiraan kuma siin karna bay yidhahdeen anagu ma eegi karno oo ma garan karno arrintaa inuu ku jirayo in kale kadib waan iskaga imid markii dambe lafiisi inaan qaataan damcay lafiisiina waan waayey adigu markaan sidii iskaga joogay waxaa jiray dadkii hawshayada na soo daayey dad ka baxsan oo kale oo ka agdhadhow xagga garanaysaa xagga buurta ama nidaamkeeda yaa markaa hadalla isweydaarsanno waa lagu soo daayay iminka maxaad damacsan tahay anu waxaan ku yidhi markaa maxaan damci lahaa anigu nin mucaarada baan ahay inaan shaambadayda iska haysta mucaaradnimadayda bes reerkayga inaan iskala joogo marka iyagu inta badan waxay daneeyaan madaxweynaha lagu geeyey iyo madaxweynaha laydin heshiisiiyey madaxweynaha maxaa naga dhexeeya ama maxaa laga heshiinba heshiiskana waxay u arkaan in inta madaxweynaha loo tago sawir lala soo galo anigu markaa waxa naga dhexeeya waa arrin siyaasadeed waa political issue-guna waa wax wadanka quseeyo waxaan keligay gooni ii taabanaya ma aha waxa markaa idhi haddii de gole laysugu yimaado wadahadal oo politicaala waa sax marka waqtiga wadahadalka laysugu yimaado unbaan kasoo qeybgeli haddiina lagu macsuumo marka haddii laysla garto oo la yidhaahdo soomaali waxayo waxaas hadan waa laga bilaabo maanta ha laysla garto hana la iskula xisaabtamo dee gole noocaas oo kale waan tegi karaa hadalkaas markaa sida ila tahay wuxuu dhaliyey kalsooni daro bacdama anigu aan doonayo inaan shaambadaydii mucaaradnimada iska haysto in mustaqbalka taa la igala dagaalamo oo loo arkayna sharaf ii noqon karto hadday wax yimaadaan markiiba markaa waxaa laygu bilaabay in lay dacaadeeyo oo la yidhaahdo ninkii waa la aamusiiyey oo waxbaa la siiyey
waxaan xusuustaa tuuran dhaloon aada u jeclaa xanuunsanaysaa anoo dhakhtar geyn kari la waan gaadhay friendship nimana saaxiibnahay baa igu yidhi wadakaale lacagana sii waan gartay markaa dacaydu meeshay ka socoto kadib maxaa dhacay xaskaygii oo tiitayda iska joogto oo wax ay samaysa inay jirin baa iyadana lasoo weeraray arrimaha waxaa loo samaynayaa markaa anigu inaan ku dabco oon israahdo warnimo mataqaanaa gabadh ina waa kan la weeraray xaggana waa kan sida lagu leeyahay laptopki waa kan lagu diiday xaggan waata maxkamaddii kaaga socotee maalin walba lagu yeedhayo bal intaad ninkii orodo sawir la soo galdeetana ha kaa kala degtee ujeeddadaasay rabeen taa marka anigu waan ka gaabsaday gabadhiina adigu markii dambe qoladii maamulka tiitayda unbaa yidhi war gabadha dee ugu qora inay xaaskaygii tahay warqadeediina keena aada ku ergeyseen adigu markii dambe political issue maadaama iska ahayd hawshu waa iska xalinsantay sidii baa lagu daayey waxay noqotay markaa anigu inaan bacdamaa aan mucaaradnimo ku suntanahay in aan macaamiishayda la wadeego mowqifkaygu inuu sidii yahay erayaan soo qoray markaa aan leeyahay miyay i qabataa bal soomaaliya garsoore ka ahaada maalin walba waxaan tegaynaa maxkamaddii haddana ha sheegin labtobkaygii ma hayo xaaskaagii waa la eryi xaggan kale waa lagaa dacaydayni waxaasoo dhan may qabataan leeyahay taa way ka xanaaqeen kadib markaa hawshan weerarkan ugu dambeeyey hadda waxaa jiray qadarada waxaan u malaynayaa diqintii 30keedii baan hadda tagnay tii kale 15 ahayd tii ka horreysay baa waxay yidhahdeen difaac keenso difaac keensana haddii mar lagu yidhaahdana waa marka lagu xukumayo oo waayo kiiskan dee waabana la soo daayey waxbana laguma hayninba in la xukumana waa wax madaxweynaha ka go-a unbay ahaydun marka walaalkay waabay dambeintay waan joognaa marka ayarkiiska in laga xidho oo qadarada maxkamadana looga yeedhaya iyo rafaadkan in laga daaye ahayd iyagu maadaama laakiin u adeegsanayaan inaan ku aamusnaano cudhaar ay tahay waxaan idhi markaa maxaa iska soo difaaci waayahay isa soo difaac qaraankii waan u geeyay cabdisalaan adigu difaacii waxaan geynay diqintii 30keedii waa maalin dhoweyd difaacii oo sidan u qornaa markii aan isdifaacnay waxaa markii ugu horreysay laygu eedeeyey 3 jeer bay eedeeyeen marka ugu horreysa ma 4 jeer bay eedeeyeen markii ugu horreeyay qodobkeedii ma hayo oo yarkii xeerdhaalihii ahaa waaba shaqadii waxa la yidhi kiiskan faraha ka qaadba adigu qodobaan macno lahayn buu ahaa baan malaynayaa waxay soo eedeeyeen markaa kow marka hore waxay ku soo adeeyeen qodobka 58 inaan propaganda galay kadib haddana way bedeleen mar labaad waxay ku bedeleen qodobka hate speech oo ah 1185 isbaaro 2020kii soo baxay proclamationka haddana way bedeleen waxay ugu bedeleen qodobka 239 oo sheegaya in awoodda dowladda iyo sharciga uu ku hor istaagay awood kale oo hubaysan taasoo macnaheedu uu noqonayo in awooddii dhannayd ee dowladda ee ciidanka cirka lahayd ee ciidanka dhulka lahayd ee taangiyada lahayd ee dayuuradaha lahayd ee wax walba lahayd in awood kale aan ka horgeeyey oo iskuulaadkii la tegi waayey oo isbitaaladii shaqayn waayeen oo transportyadii shaqayn waayeen oo adeegii kala socon waayey weeye macnaheedu ama waa qodob argagixiso ah oo qof argagixiso sameeyey waa qodobkii lagu eedeeyey sabhaad naga iyo waxay keeneen markaa waan iska difaacnay markaa difaacii mataqaanaa muhiima hadda inaan ku wada akhriyo laakiin difaacii computerka anugu gacantaba kuma hayo documentigan la sheegayo la soo print gareeyo waa qoraallo iska caadi ah waa taariikh hore haddana February baa leeyahay shir baad qabatay waxay keeneen yar liu bolisa oo channelka la socon jiray oo kii soo qabtay ah wuxuu sheegay kaliya tasahal hotel inuu joogay uu doonayo inuu shir qabto waxaas markaa dee wax qof lagu waxayn kara maaha cadaaladii markii uu akhriyey lawyer cabdisalaan qodobadii halkii markaa cadaaladdu ay doodooda ka dhiiban lahayd waxay tiri uun asluubtan hadda joogtahna loo raaciyo ninkan propaganda kaluu galay warata qodobkan inuu joognaaye dembigan hore kaa kala balkeeno oo kan maxaad ka leedihiin may maalinta dhaweyd gabadhii alla naxariisto juwariye markay dhimatay buu ka hadlay uu yidhi dadka kaca anuguna dad ha kaca maba dhihinba anaaba dadka dejinayay
waxaan lahaa un keliya cadaalad gabadhu ha hesho si dastuurka waafaqsan. aniguna markaan ka hadlaya arrimaha qaarkood dastuurka gurigaygu ii yaalaaba ugu yaraan 12 nin oo looyaro sharciga yaqaanana saaxiib baanu nahay. qodobka ana fahansanin iyaga wax ka weydiiyaaba. marka waxa la ballamay waxa la yiri looyarkii wuxuu yiri waa inaad si cusub aad u kaadsantaan oo aad si cusub u soo eedaysaan. laba maalmood kadib baa la ballamay. ballantii ka hor fiidkii waxaan maqlay unoon ka war helay in laygu soo wajahan yahay. markii hore dad waa sirdoon iyo wax la leeyahay baa la diray oo nimanaan aad iyo aqooninba oo ZM Hotel iyo inaan tago oo ZM Hotel bay tageen oo ZM Hotelna anigu cagaf baan begelin lahaa waa xarun macsiyeeba moogta gebigeeduba wadada dhan ee martan laamida dhinaca haadka ZM way xidhan tahay. shalay la saasoo kala ahayd imikana ZM wadadaasoo dhan waxay u xidhan tahay ZM. marka meel anigu aan taga maba ahaba. adigu marka arrintii waa la ii sheegay niman baa waxa lagu yidhi si uuna u baxsanin marka hore idinku intaad raadisaan guryihiisa iyo meelihiisa soo hadla marka halkaasuu joogaa un dhaha. doonitaankii hore markaan ka war helay anigu markaa waan ka sii baxay waxaan dhex maray magaaladii oo xidhanba oo bajaajka iyo meel walba la iga raadinayo. saadaan u baxay gurigeygii waa la ii daamaray. adigu habeenkii meesha waan ka baxay meel koona abaan tegey. waxaan iska tegey markii hore meel la yidhaahdo gulufo sheekh maxamed allah naxariista beertiisii baan iska tagnay dee anigu meel kastaan kala garanayna duleedka magaalada Jigjiga waan ka soo noqday. adigu maalnimadii dambe gaari baan ku baxay meel aan marayba ka bacdi adigu meel abniya saasaan ku tegey. guud ahaan markaa shalay iyo maanta xaaladaydu markay sidaa tahay waxa muhiim ah oo tahay waxani waa siyaasad. siyaasaduna qabiil ma aha. dhibaatooyinka ka hor imanaya markaa waxaa ka mid ah anigu hadda waxaan ahay muwaadin siyaasi activist ma yihi. marka siyaasi tahayna xeerar badan baa ku qabanaya dadkiina wax hadlaya ma jiro. marka waxyaabaha qaarkoodna markii hore anigu hoos umaba geli jirinba dhaliisha dowladda wax yar 10% baan ka sheegi jiray sababtoo ah dadkeenu waxay ku oranayaan haddaad biyo la'aan ka cabato adeega way dowladnimadu adeega haddaad ka cabato waxay ku oranayaan allah war halka nin reer hebel jooga maxad saad war dima reer hebel baan uu ka hadlay. marka dowladnimadii iyo kursigii ma kala saarayaan. booska qofka jooga yay reer ahaan u isticmaalayaan. haddaad ka cabato waxbarashada waxa lagu oran reer hebel joogooda wax ka sheegtay. meel kale haddaad ka cabato dadkii waa wada ehel waxa lagu oran nin gabar qaba waa nin. marka dadkeenina waa wada noocaas. anyhow maadaama anagu aan dadka u guntanay anigu damiirkayga inaan gata ma rabo. marnaba anigu systemka uu ninkaasi intuu joogo ma doonayo heshiis Soomaali ayna ogeyn inaan ka qayb qaato. sababta anigu politically baan u diidanahay interest aan u diidanahay ma jiro. politically hanaanka hadii wax laga saxayo baan ka qayb gali karaa. inta ka horeysa anigu dhaliishaydaan wadi waana dhaliil dawli ah sharcigana kuma xadgudbayo. laba arrimood baa muhiim ah markaa dadkuna inay markhaati ka ahaadaan. anigu waxyaabo fara badan baan xeerinayay. waxaan xeerinayaa kuwii dadkii isoo daayay damiin wax basta walaaladay hooyaday waxaasoo dhan anoo xeerinaya yaan hadlaa haddana wax yar wixii yaraa hadduu dhibo oo la soo weeraro carruurtaydii ka soo qaxo anigu kolkaa waxba xeerin maayo. sidoo kale anigu xeerin maayo qofka marka aniga lay dhibayo aan hadlaynin een dhibkayga ka hadlaynin ee maalinta anigu laba eray aan soo qoro oo dhaliil caadi ah hebel baan shahwada cabayno ka gubtay ka hadlaya kaana anigu xeerin maayo cid kalena u xeerin maayo. 8 milyan waxay rabtaan xeerini waa wada mucaarad laakiin ficilka un baa ka maqan. 8 milyan haddana intooda fiican waxay rabtaan anigu xeerini. waxa muhiim ah markaa anigu haddii wadanka gudihiisa aan ku ammaan waaye anigoo dhaliishaydu mid dastuuri ah iska tahay waxay noqon iyagu waxay rabaan inaan wadanka ka baxo. wadanka gudihiisa un baan intii karaankayga ku dhex dagaalamay. iyagu waxay rabaan inay activist iga dhigaan oo wax walba u murbuxsado oo anigu hadda dhaliisha dawladda un baan ku koobanahay een cabashada shakhsiga iyo wax walba inaan ka hadlo. taana haddii igu kalifto way sii soconi. haddii markaa hadda hal arin ay muhiim tahay anigoo si caadi dawladda u dhaliilaya marmarna wixii daruuri ah soo qoraya ee maaragtay hadday iyagu xitaa wax fiican sameeyaan waa inaan reerkaygii carruurtaydii la joogi karo. shaqana kama rabo manaafacaadna kama rabo xilna kama rabo. hadday dadka wada hadal ka qayb gelinayaanna dee wada hadalkaa guud baan anigu ka mid noqon karaa.
laakiin anigu intaan ordo oon isdhaahdo waa lagu eryayaa shaqo ma haysid waad rafaadsan tahay waa kan dadkii oo dhan maxaa ku dhibaya ku dhahayaan waxaas intaan u damqado waa halganka qayb ka mida waana waxaan ku talagalay halgankan iyo nidaamkana anigu haddaanan dhibkiisa garanaynin maba galeenba shalayna ilaa heerkaa jeelugaadeen aan ugu beegsaday oo lagu toogan karay maantana saasoo kale un baan ugu beegsanayaa sidaa darteed haddii lagu beegsan karo xaqiiqooyinkay hor yaalla oo dhammaantooda de waxa weya anigu buurta nabad lagu fadhin maayo wixii doonina ha ka dhaco cid doonta ha ku gubata dabka haddii iyagu shalay loo dhibaataynayo waad hadashay uu isaguna cid maanta u dhibaataynaya hebel baa hadlaya it is up to him waa history repeats by itself waa isqori isagana markaa kaalintu uu ka dhici doonaa waa lagu qiimeyn doonaa un history repeats by itself kaalinta uu geli doonaa un isaguna waqtigu wuu imani qofku wadna wuu leeyahay waqtina wuu leeyahay marka anigu waxaan u baahanahay in Soomaali ay ka markhaati noqoto anigu haddaan jigjiga joogana dhaliisha waan wadi laakiin ilaa heerkee mid anigu runta un baan sheegaa mid la faayar aan u turayo carruurtayda aan u turayo dadkaygana aan u turayo buu noqoni imikaba waxa iga dhigaya inaan wax walba sheego kaliya dadkii oon hadlaynin oo cid badan oo garab socota inay jirin laakiin percentiga aan sheego wuu yar yahay haddii taas la waayo anigu Itoobiya meel baan ka aqaanaa meel aan wax ku soo baranay ha noqoto ama meel aan tababar u tagay ha noqoto meel laga soo qaban karo waan ku dhumaalaysan karaa wax boqol meelada waxa jirtaba 1000 riyaal oo ku haynaya Itoobiya muddo bil ah oo canjaradeedii wixii yar iska laabanayso anaguna damiirkaygu waxaan u baahanahay biyo iyo timir baan ku joogi karnaa ma caruurteeda yar baan u tababara anigu nidaamka rafaadka inay la qabsadaan oo caruur iyo timir ku noolaan karta biyo iyo timir sidaa darteed waxaan u baahanahay in Soomaali ay ka markhaati noqoto war haddii adeero caruurtaydii waan u baahan anigu inaan la joogo cidda ka damqanaysa kuwa badan waxay ka damqanayaan oo meelaha ag jooga aniga dhibkayga ma arkayaan sababtoo meeshan cadaaladdu had iyo jeer ninka xooga badan baa garabka la saara anigu inta la eriyanayo inta wax laga waxaynayo maalinta anigu aan yar hadlo xagga buurta laga calaacalo ninkii suu sameeya oo meelaha lagu dhaga hadda aniga walaalada iyo dhaga hadalku muhiim ma aha ficilka socdaa muhiima ee maalin walba aniga lagu dhibaataynayo sidaa darteed waxaan u baahanahay in wixii la isqabadsiin karo anigu intaan hebel u tago waxaa ku haysta sawir la geli maayo never in the history waxaan isugu iman karnaa oo kaliyeeta maalinka ninkaasi uu yidhaahdo Soomaali waka 4 sanad maamulayna khaladkaasaan galnay hadduu sii joogayana khaladkii waka waan ka garaabaya kana jira maanta laga bilaabo haddana Soomaali maxaa dan u ah Itoobiya saan loo noolaan karnaa dareehna gaareed khaladkii iyo wixii intuu ka garwaaqsado kolka anigu caadi bulshadan baan ka mid noqoni haddii Soomaali wax isku afgarato laakiin anigu shaambadeeda mucaaradnimadu inay marnaba baaba'do iyada oo conclusion siyaasadeed loo helin in marnaba lagu xaliyo xal shakhsi oo aniga la ii sameeyo xal shakhsi anigu uma socdo mana doonayo kaasina waxa uu ahaa Siraajo Aadan oo khadka telefoonka kaga wareysanay xaaladiisa iyo sidoo kale xabsigii oo muddada ku jiray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay tan iyo intaan kulmi doona barnaamijka lamid ah waxaan kaga tagaynaa sidaas